دكتور soo dhawow marka xigtana su'aasha ugu horeysa waxay tahay doorashooyinka dalka ka dhici doona sanadka 2020 iyo doorashooyinkaas sida adigu aad u aragto aan mana rabo inaan ka hor dhaco oo dadka balay u sheego laakiin waxa la rabaa rejiimka hadda jira ama dawladda hadda jirta waxa la rabaa dadka inay ka ilaaliso ama public opinion inay ka ilaaliso moodkooda iyo dareenkooda inay dhici karto doorasho aan iidoon leesla ogoleen la qabto in xubnihii dawlad goboleedyada ugu matali lahaa dhinaca doorashooyinka laftirkooda dawlad goboleedyo aan soo gudbin oo ay ka mid yihiin Jubbaland iyo Puntland oo dhinaca federaalka marka taa iyana bal maxaa dhibaato ay keeni kartaa وسان أبنها مدحوين فرماج أسود ديدل وضع الدور شقوف عدن قضاء أسوق بكر مركي مادين لبدا مدحوين جبلان إيو مدحوينها بنتلا مركي مادين أيجا سياسة أيجا فيكسد جري لكن مدحوين ناس مركي لابتين وعم وقت مدحوين فرماجو إنه ميشي سيكسي ودي أو أنا مدحوين فرماجو مرة بين عنده نيت في عينك كمان وقت هذا مرة لكن كما أركو إيمان موقته إن مدحوين فرماجو أو نيت في عن يو مامل في عن يو وحكمت في عن يرجف في عن إنه أبورا مدحوين فرماجو إيمان موقته كوفو قلبين يهير شبيلي يقلمدو إنه يكون جران جاب كمدحوين فرماجو oo soo rabo oo ka yeeli karo waa dhaawac koobaad ee doorashadan 2020 ka dhacaysa waay marka ma isleedahay gudigan doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay iyo arinta gobolada waqooyi bal in laftirkeeda saameyn xoogan bay ku yeelan kartaa doorashooyinka dhici doona dadka la magacaabay ayaa waxaa yiri dadkaani dad dhexdhexaad ma ah markay inta joogan oo shaqada ka dhabaato qaarkood waa joogan laakiin badankood inta baxaan oo taga Hargeysa wixii dhigi jiray wato bakeen meeshaan problema ka jira oo koonfurta Soomaaliya problema ka jira oo ay ku qabaan walaalahayna waqooyi galbeed ee Soomaaliya markay yimaadeen markii la rabana inta guryaha laga baxo habeenkii oo xaabta jizra geesto ala gowraca sidii dhacday dadka Soomaaliyeed ee ka yimaada gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya ka yimid in magaalada Muqdisho lagu ihaanaysto oo sidii la raba laga yeelo waan is aqbalay Dr. Xasan Sheikh dad baa waxay ka aaminsan yihiin ama ay sawirtaan adigu inaad mucaarad ku tahay dawladda federaalka taas maxaad kaga jawaabaysaa لكن سؤال أقول دينا هرت يا دولة